taageerayaasha iyo labadan koox ee wadwadaagta magaaladan ku herdamaan waa kooxaha Al-Ahli iyo Zamalek waxa ay soo jirtay ilaa iyo ka hor intaanu dalkani xornimada qaadan kooxda Al-Ahli waxa horaantii loo asaasay arrimo siyaasadeed awgood laakiin markii dambe waxay wadada u xaartay arday goobaha naadiga u isticmaashay si ay u horumariyaan awoodooda ciyaaraha dhanka kale kooxda Zamalek waxa ay saaxadda ku soo biirtay 4 sano kadib asaaskii Al-Ahli dad badan oo dalkan ku nool waxay u arkaan inay tahay koox u janjeerta dhanka madaxda iyo qurba joogta reer Masar si kastaba ha loo fasiree Al-Ahli iyo Zamalek waa labada naadi ee loogu jecel yahay dalkan isla markaana soo saaray xidigaha caan baxay ee Masar waxa ay ku guulaysan ilaa 40 koob dalka Masar qaaradda Afrikana koobab kale oo badan ayay hanteen kooxda Al-Ahli kama gabato inay koobabka dahabka ku xardhato muraayadaha laga daawado tan iyo sanadkii 2015 waxa ay difaacanayeen horyaalka dalkan ilaa 18 naadi ayaa ku jira horyaalka Masar laakiin sida ay Al-Ahli aaminsan tahay cidda kaliya ee u babacdhigi karta waa kooxda Zamalek waxa ay Zamalek ku jirtaa kaalinta labaad dhanka haysashada koobabka dalka si kastaba ha ahaatee labada kooxba waa ay ku raaxaystaan xifaaltanka ka dhaxeeya waa xifaaltan aanan xiise yeesheen haddii aanay jirin taageerayaal xoog leh waa qaylo waa xamaasad aan la qiyaasi karin oo halbowlow ah jiritaanka labada naadi taageerayaasha Al-Ahli oo si kal iyo laab ah ugu dhawaaqaya halkudhiga kooxda wadajirku hawaaro dhanka Zamalekna sidoo kale ayay u damaashaadayaan halkudhigoodu waa walaaltinimadu waa dhiigga inta badan marka ay labada naadi isku dhacaan gacan ka hadal ayaa dhex mara taageerayaasha garoonka kaliya kuma dagaalamaan ee marar badan diriirtu waa ay la sii fogaataa Zamalek weligeed ayay ka soo horjeeday Al-Ahli Zamalek ma laha maamul xoogan waxay ku guul daraysteen koobka sanadkii hore waa koox aan nasiib lahayn waxaanay taageerayaasha Al-Ahli waxaan aad ugu kalsoonahay inaan ku guulaysan doono koobka marar badan ayaan hore ugu guulaysanay dadka reer Masar inta aanan haleelin garoomada waxa ay ciyaaraha kubadda cagta ku daawadaan meelaha lagu qaxweeyo halkan oo kale iminka waxa ay daawanayaan ciyaar kubadda cagta oo iga dambaysa waxaad moodaa dadkan inaanay xiise badan u qabin daawashada ciyaaraha kubadda cagta laakiin toddobaadka dambe maalinta